الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين markii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ay da'diisu 40 ku dhowaatay waxaa la jeclaysiiyey inuu ku qaato saacado dheeraad ah cidlo iyo kelinimo iyo dorisid dhammaan arrimaha uunka hareerihiisa ah keli fikirkaasi waxay keentay inay ballaariso farqiga aragti ee u dhexeeyay isaga iyo qoonkiisa wuxuu qaadan jiray sawiiq iyo biyo oo markaas aadi jiray gebiyada iyo waraqyada u dhow maka mid ka mid ah baa ahaa gaar ahaan meesha uu fadilo waa gebi la yidhaahdo xiraa oo ku yaal buurta jabal nuur wuxuu u jiray oo keliya 2 mayl maka gebi yar oo dhererkiisu ahaa 4 dhudhun balliciisuna ahaa 3 dhudhun iyo dheeraad wuxuu aadi jiray badi halkaas oo uu ugu yeeri jiray dadka safarka ah inay la wadaagaan raashinka fudud wuxuu ku dhamaysan jiray waqtiga badankiisa gaar ahaan bisha ramadaan cibaadaysi iyo fiirfiirinta iyo ka fikiridda muuqaalka koonka baaxadda weyn iyo awoodda ka dambaysa ee amaamuday waa allah jalla wacala qalbigiisu waa uu ka walwarsanaa oo kuma uu qanacsanayn caqiidooyinka shirkiga iyo qabitaanada daleesha ah ee tulkii rumaysnaayeen isla markaasna ma uu haysan wadacad iyo manhaj la yaqaan oo uu ku xasilo oo qanciya rasuulku sallallahu calayhi wasallam cidlaysiga uu doortay oo jeclaaday waxaa ka dambeeyay maamul alle si loogu diyaariyo arrin weyn oo ku soo aadan oo sugaya naf kasta oo la doonayo inay wax bedesho oo sida aadanuhu ku nool yahay saameyn iyo raad ku reebto waxaa lama huraan ah inay hesho muddo ay firaaqowdo oo gooni iyo cidlo ku noolaato oo ay ka soocanto oo ka dhex baxdo buuqa iyo qaylada nolosha iyo fekerka aadanaha ee firigta ah ee nolosha la filka ah sidaas buu alle kor ahaayay rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam u qoondeeyay isagoo u diyaarinaya xilka weyn ee uu xambaari doono oo dhulka gudihiisa isbedel ku samayn doono oo majaraha taariikhda leexin doono wuxuu alle rasuulkiisa cidlaysigaas u qoondeeyay 3 sano ka hor intii uusan xilka risaalada qaadin muddo bil ah buu cidlada u bixi jiray isagoo la noolaan jiray koonka dalaasha ah oo u fiirfiirsan jiray waxa qarsoon ee koonka ka shisheeya inta laga gaarayo maalinta uu la falgeli lahaa waxa qarsoon markii alle idmo markii uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam 40 jir gaaray da'da kaamil noqoshada ee nabiyada mar waliba lagu amro inay shaaca ka qaadaan risaaladooda astaamihii nabinimadiisa baa bilowday inay ka muuqataa oo ka soo bidhaantaa jihooyinka nolosha waxaana calaamooyinka ka mid ahaa riyooyin haddii uu riyo ku riyoodo iyo adigoo dharaar cad sideedii ah buu arki jiray muddo 6 bilood ah bayna riyadaasi socotay muddada nabinimada waxay ahayd 23 sano kolka muddada 6 bilood ee riyada lagu darana waxay noqonaysaa 46 qaybood ee nabinimada ka kooban tahay ramadaan gudihii oo ah sanadkii 3aad ee uu ku khalwoonayay nabigu gabiga xiira rabitaanka alle waxay doontay naxariistiisu inay ku dararto dhulka muxamedna sallallahu calayhi wasallam waxaa lagu shafray nabinimada nuurkii waxyiga baa xoog u kala furmay oo aayado ka mid ah qur'aanka kariimka ah baa soo degay markii la baarayna maalintaasi waxay ku beegnayd maalin isniin ah 21 ramadaan habeenimo oo waafaqsan 10 Agoosto sanadkii 610 ee miilaadiga markaasna rasuulku sallallahu calayhi wasallam da'diisu waxay ahayd 40 sano iyo 6 bilood iyo 12 cisho oo sanadka dayaxa ah taasoo u dhiganta 39 sano iyo 3 bilood iyo 12 maalmood oo sanadka qorraxeedka ah Caaisha runleydii waxay soo warisay warintan soo socota ee la xiriirta dhacdada taariikhiga ah ee la soo dejiyay nuurka ilaahiga ah ee lagu saaray mugdigii kufriga iyo jaahilnimada waxa ay jeexday nolosha wada cusub oo keentay isbedelkii u weynaa ee dhaca taariikhda aadanaha Caaisha Allah ka raali noqday waxay tiri hordhici waxyiga iyo sida uu ku bilowday nabigu sallallahu calayhi wasallam waxay ahayd riyo run ah
haddii uu riyo ku riyoodo wuxuu arki jiray iyada oo dharaar cad ah sideedii oo kale. dabadeedna waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam la jeclaysiiyey gooniyoobid iyo soocanka, wuxuuna ku keliyoobi jiray gebiga Xiira oo uu ku cibaadaysan jiray habeeno tirsan intuusan u laaban xaaskiisa. dabadeed waa uu u laabanayay, markaasuu sahay ka soo qaadan jiray dhan. inta uu joogayay isagoo sidaas ku jira oo gebiga Xiira jooga baa xaqii malaku u yimi oo ku yidhi akhri. ma akhrin karo buu isagu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu tilmaamay, markaasuu i qabtay oo i camajuujiyey, misna wuu isii daayey oo ku celiyey amarkii akhri. markaasuu yidhi rasuulku anigu wax ma akhrin karo, markaasuu misna qabtay oo camajuujiyey ilaa uu ka daalay nebigu sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yidhi akhri, waxaan yidhi ma akhrin karo, wuu i qabtay oo i camajuujiyey markii saddexaad oo misna isii daayey oo yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram. waxaa soo degay aayadaha u horreeya ee qur-aanka. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu ku celceliyey aayadahan, wuu la jaraynayay cabsi. markaasuu rasuulku isgediyey oo u tegay xaaskiisii Khadiija oo yidhi iddada waana la deday intii naxdintu ka bacday. wuxuu uga warramay Khadiija arrinkii gebiga iyo inuu naftiisa u yaabay. xaaskiisii waxay isku dayday inay dejiso oo sugto isaga iyadoo leh maya wallaahi baan alle abidkaa kuu hoojinay. saa adigu waxaad xiriirisaa riximka oo ka qaadaa culaabta qofka daciifka ah, waxaad kaalmaysaa saboolka iyo baahanaha oo soortaa martida oo ugu dulqaadataa dhibo iyo xaqdaradooda. markaasay u kaxaysay nebiga sala allahu calayhi wasalam ina adeerkeed Waraqa bin Nawfal bin Asad bin Cabdilcuzaa, kaasoo galay diinta kirishtaanka islaamka ka hor oo ku qori jiray injiilka afka Cibraaniga. wuxuu ahaa oday waayeel ah oo indhabla. Khadiija waxay tiri in adeerow bal dhegeyso wiilka aad adeerka u tahay. Waraqa wuxuu yidhi wiilkii walaalkayow maxaad aragtay? rasuulkii sala allahu calayhi wasalam wuxuu uga warramay wixii uu la kulmay. Waraqa wuxuu ku warceliyey kani waa naamuus uu alle u soo diray nebi muuse calayhi salaam. wayay haddii aan xoog lahaan lahaa, wayay haddii aan noolaan lahaa. marka tolkaa ku saarayo Muxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu weydiiyey oo miyay isaari doonaan? Waraqa wuxuu ku jawaabay haa, ma jiro nin waxa aad la timi oo kale la yimid oo aan la colaadin. haddiina aan noolaan karo, haddii aan nolol ku gaaro maalintaas, markaa hiil la yaqaan baan ku hiilin doonaa. dhowr maalmood kadib Waraqa waa dhintay. waxyigii sidoo kale waa joogsaday. walaalayaal, darsigeennii maanta halkaas ayuu inoo joogayaa. inta aynu darsi lamida ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.